فائسة حلي وانا ديناي أذيقا حلي قور كستبا حلوين شعبك إسك صارو حقوق دائنا دودو xildhibaanad Faa'iisa Maxamed Jeyte oo ka mid ah golaha baarlamaanka Soomaaliya oo maalmahan socdaal ku joogta dalkan Koonfur Afrika ayaa dhambaal muhiim ah hordhigtay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkan South Africa oo iyaguna sidoo kale fariin message cad ah u diray madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya. hadalkan ayaa xildhibaanada qaran ka sheegtay xaflado isbarkanaa oo xalay ka dhacay magaalada xeebta Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika. xafladahaasi oo kala ahaa soo dhaweynta xildhibaanada iyo xuska sanad guurada beelweynta Karanle waxaana ugu horeyn dadkii soo dhaweynteeda ka hadlay kamid ahaa xildhibaan Faa'iisa Maxamed Jeyte xalfadda loo dhigay aad baan magaalada ugu soo dhawow dalkaadii iyo dadkaadii oo qayb kamid ah inta ugu badan waxaan leeyahay marka dhammaan mar sharafka iyo inta soo qayb gasho waa ku maasan yihiin وانا فرانو فرانتا كوشو كسو دو ان شاء الله تعالى حل ديبان قيحيديد محويه حل كا ديبا سوما دي waxaan ka rabnaa marka insha Allah ta'ala oo dardaarankeenu uu yahay xilku sida aad u qaaday ha ku dhibo oo macnaheedu ha ku culaysiyo oo ummadda iyada sida aad ugu danqanayso mar walba wanaagati u horseeda Allah ka dhigo xildhibaanada qaranka Faa'iiso Maxamed Jeyte agaasima ayaan Cabdiraxmaan culmaa u diinka odayaasha dhalinyarada haweenka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib xafladan caawa qiimaha badan waxay daaran tahay soo dhaweyn balaaran oo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ee u sameysay xildhibaanad Faa'iisa Maxamed Jeyte oo ayadu kartideedu ay gaarsiisay Soomaalidu waxay tiraahdaa gurigiisa ninkii ka soorana ragde guri kale kii ka soorana rakaroonde inay intay macnaha gaartay inay u hadasho dadkii wadanka gudihiisa joogay inay tiraahdo meesha South Africa mar walba qeylada ka soo yeertane balaan soo ogaada waxa ka jiro marka aad iyo aad aan ugu hambaleynaynaa maadaama xildhibaanada dawladda nala joogto oo dawladda Soomaaliya matasha xildhibaanadu waa xildhibaan magaceedu aad u dheer yahay annagu halkaan joognaan la soconaa doodihii ay la galayso ragga meesha jooga iyo maxaan ku yiraahdaa baarlamaanka afhayeenka ayadoo u doodaysa oo muujinaysa cilmiga iyo waxbarashadeedii inay ummadda u khidmayso qof aan wax baranin oo waxna akhrisaninna lagama yaabo inuu ummadda u khidmeeyo marka waxaan leeyahay caawa waa habeen wax badan xambaarsan markii waxaan leeyahay wax badan ayayna mudan tahay annagu waxaan lahnaa gabadh hebel waxa way waa rakaroona waa gabadhaas oo ragga ka fiican tahay markii waxaan leenahay Faa'iiso anagoo soo dhaweeyayna madaxda Soomaaliya oo nala joogta xildhibaan Faa'iiso ku soo dhawow dankaaga waayo dadkaaga aad bay ku jecel yihiin aad bay kugu hamuun qabeen inay ku arkaan waxaan ku leenahay soo dhawaabaan leenahay cawada xafladanu waa farxad waa reereyn waa soo dhaweyntii xildhibaanadii qaran oo aad uga dhex muuqata baarlamaanka walaashay Faa'iiso xaggeedan soo fiirina maadaama caawayada marti u nahay ayaduna marti noo tahay waa ku salaanay inta ka bacdi haddee har badan meesha Koonfurra jaaliyaddu waa isla joogtaa dib inay soo wareysan doontaa shirar gooni xildhibaanka waa la yeelan doonaa walaashana Faa'iisa xildhibaanadan soo dhawaa kulana walaalay meeshan waa South Africa qaasatan Cape Town sidii aqyaartii ugu horeysay hore u sheegtay waa markii koobaad ay xildhibaan qaran oo gabar ay noo timaado insha Allah gabdhaha kale xildhibaanadana waxaan ayagana fariin ugu reebi doonaa inay soo gaaraan oo sida xildhibaanada rag ay noogu imaan jireen inoogu yimaadaan haddii Ilaahay yiraahdo adigana waa ku soo dhaweynaynaa in badan soo dhawow waxaan aad ugu xunnahay inay baahda dawladda xilalka idinku haysato ee kaalimihii dumarka ay lahaayeen xitaa ay dawladda rag u dirsanaysa ayadana taas inaad ka dagaalami doontiin waa filinaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo marka hadda waaba dhacday inaana mar dambe loo noqon inaad ka shaqaysiin jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Western Cape ama guud ahaan South Africa
xildhibaanad Faaiso Maxamed Jeyte waa jaaliyad baaxad aad iyo aad u weyn oo hantima guurta iyo guurtaba ku leh waa dad ganacsi aad iyo aad dalka ay nool yihiin ama ay ku nool yihiin uga sameeyay waxaad caaw u jeedaa sida ay jaaliyadda Soomaaliyeed cid amaankeeda sugay aysan jirin ay caawa si nabad ah ku damaashaadayaan soo dhaweyntaadana kaalin ugu yihiin ayay sidaas oo kale nolol maalmeedkooda u raadsadaan inta meesha ka soo qayb gashay kulligiin waa in salaamayaa qaasatan waxaan salaamayaa xildhibaanadeena soo dhawaa walaashay waxaan si qaas u soo dhaweynayaa xildhibaanadeena Faaiso Maxamed Jeyte oo noo ah xildhibaan qaran waxaan rabnaa inaad message naga gaarsiiso dawladda Soomaaliya wadankan anaga wadankeena ma ahan inkastoo aan ku noolnahay waxa lagu dili jiray ragga maanta waxay taagan tahay in haweenkii lagu dilooyo oo hadda ay gabar noo dhimatay anoon jeclayn aan hadalkayga ku sii dheeraado haddana waxa ay sii haysay xamaasad oon jeclahay in gabdhaha Soomaaliyeed ee wax bartay ee meesha jooga in ay kaalintooda ka soo baxaan oo loo baahan yahay in ragga ay garabkooda soo istaagaan Faaiso Jeyte oo ah xildhibaanadii ugu horeysay ee dumar ah ee soo gaarta Cape Town ayaa iyadoo ka mahad celinaysa xafladda loo dhigay waxa kelmadaheedii quruxda badnaa ka mid ahaa waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Cape Town oo sida hagar la'aanta oo walaalnimada iyo sharafta leh igu soo dhaweysay habeen hore hadda mar labaad xafladan qaban qaabisay si guud iyo si gaarba waa mahadsantihiin Allah idin sharfo sax waay dalkaaga dal ahayn dareen ku joog waaye laakiin maalin meel joogtaa annagoo dawlad la'aan ahaan jirnay ku meel gaaraan ku jirnay hadda waa ka soo baxnay waxaan joognaa dawladaan ku meel gaar ahayn laakiin Soomaali yaan nahay binaadan waa nahay wax badana wali naga qaldan wax hadda dhibaato u badan Soomaaliya ka jiray waa ogtiin wixii hadda baryahan jiray shacabka Soomaaliyeed horta ayaga laga rabaa inay soo xilqaamaan dawladnimada Soomaaliya waa taagan tahay inay tiirar u noqdaan oo ay ka shaqeeyaan sidii dawlad Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed kala gaarto oo dalkeena aan ku noqono oo maalin Ilaahay keeno wiilasheena meeshaan lagu dilaayo ama kuwa Soomaaliya ku dhimanayo ama kuwa si ay dhiigooda naftoodu badbaadaan kaliya madaxda kaliya waxba ma qaban karto shacabka Soomaaliyeed waxa laga rabaa inay horta aaminaan dawladdu inay ayaga u shaqeyso oo cidda loo shaqeeyo inuu shacabka yahay laakiin shacabka ay ayaga isu maleeyaan inay ayaga shaqaale yihiin oo dadka dawladda ku jiro ay madaxda yihiin oo ayaga loo shaqeeyo dawladnimada ma arkayaan waligiina qaxooti ahaysi khaarta meesha isugu timid oo rag leh haween leh ganacsato leh culamaa u diin leh siyaasiyiin leh arday jaamacadeed leh dhammaantiin waad salaamantihiin waxaa la yidhi hadal gaaban waqti gaaban warkiisna gaaban arrintu waa noo soo gabagabowday waxaan ka mahad celinaynaa inta ka soo qayb gashay oo meesha timid waad ku mahadsantihiin 100% xafladina sidaas ayay noogu xiran tahay oy wejigeeda noogu dhammaaday koobaad sidoo kale sanad guurada beelweynta Karanle oo sanadkan ka ballaaran dabaaldegyadii hore ayaa bulshadii ka hadashay waxaa hadaladooda ka mid ahaa waxaan u hambalyeynaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee meeshan joogto qaas ahaan jaaliyadda Karanle oo maanta ay tahay maalintoodii xildhibaanad Faaiso Maxamed Jeyte caawa waxay halkan u joogtaa inay jaaliyadda Soomaaliyeed ee South Africa qaasatan gobolkan Western Cape inay kala qayb qaadato midnimadooda iyo wadajirkooda munaasabadaha saaran ay kamid tahay soo dhaweynta xildhibaanada iyo 31 calankan iyo midnimada beesha Karanle oo caawa ku soo aaday waxaan leeyahay jiro jooga waxaan leeyahay Faaiso waxa godashan ku dhigay Soomaali weyn qaasatan reer Karanle calanka iskale aniguna waxaan ahay macuusley nin macuusley aan ahay gunaanadkiina xildhibaanad Faaiso Jeyte oo ammaan iyo bogaadin muhiim ah u jeedisay jaaliyadda Karanle ee gogasho u dhigay sanad guuradana qabsaday
waxa ay kula dardaarantay sida tan. si gaara waxaan rabaa in ayagan ula dardaarmo calankan iyo xafladan dadka iskale horta waxaa la rabaa calan iyo xaflad in la sameeysto wax fiican waaye qabiilna wax dhiba ma lahan ilaahay isku aqoonsado dhaxli tacaaruf waaye laakiin waxaa la rabaa qabiilka waxa loo sameeyay inuu noqon inaan dadka lagu dulmin qof bini aadan oo qof dulmiye inaan qabiilkan magaciisa dulmigiisa loogu helin in ay noqoto meel qofkii yimaado ama dadkaas daris la ah ama la degan war meeshaas waa lagu nabadgelaa inay noqoto inuuna noqonin magacaan magac ummadda Soomaaliyeed dib u keeno ama taariikhdan taariikh xun oo annaga xataa samaysanay wax afagta gadaalna ugu soo celinayso noqonin wax wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed ay ku daysato oo dadka Soomaaliyeed isu soo jiido oo aruuriyo oo dadka Soomaaliyeed qof kasta oo meeshaas dadkaanu degan yahay timaadama Itoobiya ama Kenya ama Soomaaliya ay noqdaan meel amni iyo xasilooni lagu dareemayo dadka Soomaaliyeed isugu mid yihiin jecel yihiin aanan ka jirin nacayb iyo takoor Soomaalinimo Soomaaliya wax ku nahay qof Soomaaliya ka maaranto ma jirto qofta aaminta inay ayada wax kaligeed noqonay wax ma noqonayso waa la soo tijaabiyo waa lagu daalay marka idinkan waxa la idin ka rabaa Soomaalinimada inay muqaddas tahay inaad ogaatiin inaad kulan samaysatiin oo isu imaatiin sanadka hal mar wax fiican waayo is xiriirisiin qaraabada inay is xiriiriso shariicada islaamka qabto wax dhibo ma keenayso waa la ogol yahay inaad isu imaatiin xafladaysiin laakiin inay noqoto mid khayr iyo wanaag ummadda Soomaaliyeed looga shaqeeyo kula dardaarmaa wariye Indo Goobjoog TV Cape Town Koonfur Afrika